Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono barnaamijkii maanta lagu waday in uu ka qabsoomo taalada daljirka Daason ee magaalada caasimadda Muqdisho ayaa baaqday. Haddaba midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray go'aankii lagu baajiyay barnaamijka falaqeen ayaa daawadayaal ku sameyn doona warbixinteena ayaana idinku soo koobi doonaa xogo fara badan oo arintaasi ku gadaaman hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambaralka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada caasimadda Muqdisho ka taagnaa jahwareer siyaasadeed midkii ugu cuslaa abid iyadoo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu fasaxay barnaamij la sheegay in looga soo horjeedo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo barnaamijkaas ayaa waxa uu ku qotomay in markaasi la diido afgambigii dhicisoobay ee 27 Diseembar 2021 uu Farmaajo ku dhaqaaqay isla markaana uu afgambiyay xafiiskii uu ku shaqeynayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xafiiskii ay lahaayeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne hore Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo arintan ka walaacsan isla markaana ka xun in markaasi Muqdisho marti soorto barnaamij isaga looga soo horjeedo ayaa waxa uu dadaal fara badan ku bixiyay sidii barnaamijka loo joojin lahaa isla markaana loo soo afmeeri lahaa si walba iyo wax walba oo ay ku qaadato waxa uu soo maray dhanka iyo maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo si weyn u taageersan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isla markaana kamid ah kooxdiisa ololaha ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkaasi aan la qaban karin iyadoo fasax aan looga haysan maamulka gobolka Banaadir arintaasi ayaa waxa ay fajac ku noqotay oo la yaab ay ku noqotay dadweynaha Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dhaqan magaalada waxa ayna sheegeen oo ay su'aal geliyeen sida fasax looga qaadanayo maamulka gobolka Banaadir iyadoo la qabanayo barnaamij nabadeed oo uu dastuurka ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya fasaxay arintaas ayaana waxa su'aal sidoo kale geliyay dadka falaqeeya ama odorosa ama taxliiliya siyaasadda dalka Soomaaliya oo markaasi si weynba u yaqaana arrimaha ku gadaaman ama qodobada ku jira dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa hadda u muuqda in markaasi barnaamijkaasi uu iska hakiyay maadaama isimada ama dhaqanka gobolka Banaadir ay la fariisteen dadkii barnaamijkaasi abaabulayay isla markaana ay kula taliyeen in ay barnaamijka hakiyaan maadaama ay ka dhalan karto rabshado ama amni daro wata markaasi qalalaaso siyaasadeed waxa markaasi mucaaradka Soomaaliya lagu eedeeyay in ay qabanayaan oo ay hoos ka riixayaan arrimaha ku gadaaman barnaamijka maadaama dulduleeladii la soo xiray doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale su'aal la geliyay damaca waalan oo ay wataan mucaaradka Soomaaliya kuwaasi oo u hanqal taagaya kursiga oo iminka sida sharci darada ugu fadhiyo ninka ku hoos jira Villa Soomaaliya ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si walba ahaataba Cali Yara Cali iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa khilaaf culus uu kala dhaxeeyay dhanka iyo mucaaradka Soomaaliya iyadoo arintan markii la eego wasiirka amniga uu la xigsaday ama uu la jirsaday dhanka iyo dadka abaabulaya barnaamijka halka Cali Yara Cali uu isagana sidoo kaleba kasoo horjeestay barnaamijka oo si cad ama wacadba ku maray in uu joojinayo barnaamijkaasi oo si weyn looga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo barnaamijka ayaa loo madlanaa in maanta oo Khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 1 January 2022 uu ka dhaco taalada daljirka Daason ee magaalada caasimadda Muqdisho taas oo u dhow xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya balse arintaasi oo walaac ku abuurtay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa ugu dambeyn ay noqotay mid la soo xiro albaabkeeda oo ay soo xiraan dhaqanka gobolka Banaadir arintaasi markii ay kala fariisteen dhaqanka dadkii abaabulaya barnaamijka waxaa durba ku qancay oo aqbalay codsigii ka yimid dhaqanka dadkii abaabulaya barnaamijka oo sheegay
in ay u hoggaansamayaan wax kasta oo nabadgelyada lagu markaasi xoojinayo. qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho shalayto, waxaana ku dhintay 5 askari halka ay ku dhaawacmeen 5 qof oo rayid ah. arrintaas ayaana loo fasirtay in ay weli taagan tahay amni daradii ka jirta gobolka Banaadir. Cali Yara Cali oo tagay goobta uu qaraxa ka dhacay isla markaana faahfaahin uga bixiyay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in barta uu ka dhacay qaraxa uu isaga marayay isla markaana isaga la damacsanaa, balse Cali Yare oo loo xil saaray amnigii gobolka Banaadir ayaa waxa uu inta badan qoraalo isdaba joog ah ku soo qora dhanka iyo barta uu ku leeyahay Facebook. qoraaladaas ayuu uga difaacaa dhanka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markii la eego mucaaradka Soomaaliya, waxa uuna sidoo kale ku amaanaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo muddaxileedkiisu dhamaaday 8 February ee sanadkii hore 2021. hadda banaanbixi ayaa la hakiyay qalalaaso siyaasadeed ama mid amni si aysan u dhicin, waxaana shacabka Muqdisho ay noqdeen kuwa ku farxay iyo kuwa ka soo horjeesta arrintaasi, maadaama ay kalkii horeba isugu jireen kuwa banaanbaxa dhigay iyo sidoo kaleba kuwa ka walacsan banaanbaxa. midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray go'aankii lagu baajiyo banaanbaxa kadib markii la sheegay in banaanbaxaasi ay baajiyeen isimada ama dhaqanka gobolka Banaadir. golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka jawaabay go'aankii dib loogu dhigay dibadbax looga soo horjeeday isku daygii Afgambi ee 27 December oo markaasi ka dhici lahaa maanta oo Khamiis magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ah ugaaska beelaha Mudulad ayaa shalay sheegay in la joojiyo banaanbaxa kadib markii ay heshiis la gaareen golaha bulshada Banaadir oo qabanqaabinaya banaanbaxa. maanta waxaan u nimid wiilasheeni loo xil saaray qabanqaabada banaanbaxa, waa la fariisanay waqti badan ayaan qaadanay, waxaan ku faanaynaa in soo jeedinteeni ay nala qaateen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka reer koonfurta. dhaqankooda ma maqlaan ayaa la dhihi jiray, laakiin maanta marqaati waxaan ka nahay in wiilasheena ay aad noo aqbaleen, ayuu yiri Ugaas Maxamuud. golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen uga mahadceliyay golaha bulshada Banaadir aqbalka ay ku sameeyeen codsigii kaga yimid odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo midowga musharaxiinta ee ahaa in dib loo dhigo mudaharaadkii oo golaha bulshada Banaadir qaban lahaa maanta oo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 1 January sanada 2022. goluhu wuxuu cambaareynaya hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee faldambiyeed ku tilmaamay mudaharaadka oo ah xaq dastuuri ah sida uu dhigayo qodobka 20aad ee dastuurka dalka ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya. goluhu wuxuu adkeenayaa in mudaharaadku yahay xaq dastuuri ah, shacabka gobolka Banaadirna ay xilli kasta mudaharaadi karaan. dhinaca kale golaha ayaa uga mahadceliyay xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in ay gudatay waajibkii kaga aadanaa mudaharaadka. goluhu wuxuu mar kale ku adkeenayaa xukuumadda in ay ilaaliso xuquuqda muwaadinka, xilna iska saarto furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horeyso xuriyadda mudaharaadka, kulamada, ololaha safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo la baajiyay banaanbixii ay ku baaqeen golaha bulshada Banaadir, iyadoo ugu dambeyn ay aqbaleen codsigii ka soo yeeray isimada ama ugaaska beelaha Mudulad kaas oo kula qaatay magaalada caasimadda ee Muqdisho. banaanbaxaasi baaqashadiisa ayaa waxa ay fursad weyn u tahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, kaas oo iminka ku jira Villa Soomaaliya isla markaana si weyn kaga soo horjeeday banaanbaxan la sheegay in isaga looga soo horjeedo. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay like inoo sar, subscribe inoo sar channelka fura gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.